عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa saddex qodob inaan ka hadlo waa anigoo Cabdi Xoosh Ashkira qodobka koobaad bishii Luuliyo kowdeedii ayaa waxaan nacasumay oo noo yeeray oo dibay noogu yeeray anagoo saddex nina una beersal barnaamijka uu noogu yeeray waxay ahayd inaan ka hadalo 50 sano ka hor wixii dalka Soomaaliya iyo maanta inta ka dhaxaysa wixii uu hagaagay iyo wixii ka halaabayba waxa dhacaynimo saddexdanadii nin oo meesha isugu yimid labadii nin oo nin wax ay ugu bilaabeen attack maagis anigu dawladii ma ahayn waxaan ahaa nin ganacsada sidii dawladii aan ahay oo kale ayay aniga arintaydii ay u qaadeen attackgaas ay ugu bilaabeen day shakhsi bini'aadmi aan ahay dawladiina kamid ma ahayn si khalad hadii wax iiga dhaceen si khalad wax iiga dhaceen ama hadalkaygii dad badan baa dhibsaday ama ay dib u arkay waxaan doonayaa inaan qodobka koobaad ka raali geliyo gabar iyo wiil iyo oday ama ha loo sheego ama ha maqleen ama ha daawadeene wixii meesha ka yeeray waxaan ula jeeday ummadda Soomaaliyeed iyo gabdhaha Soomaaliyeed iyo dadka waliba reer waqooyiga la yiraahdo Soomaaliland la yiraahdo gabdhihiisa oo xidid aan nahay oo qaraabo nahay oo ehel aan nahay oo aan xumaanba waligeed banaan dhaxmarin ayaan hayna inaan dhaxmadho ayaan waxaan doonayaa horta raali gelin weyn iyo mataqaana xaalba inaan ka siiyo arintaas hadii ay u dhibsadeen midaan ula jeedayna ma ahayn inaan ama dad ku dhibaateeyo ama dad gabdhahaas ku dhibaateeyo waa mid shakhsi caygii nimanka ka soo baxaya afkooda ama maagistoodii sidaan anigu dawladii ahay oo kale ummaduna aan ka dhashayna maxaafidna way lahayd niman diidana way lahaayeen marka qolo aan ku jiray ilaahay baa shuqul ku leh ama waa la ogaaba markaas sidii dawladii ama Maxamed Siyaad baan ahay ama qoladii la talinaysay aan ahay ayay ila hadleen ama hadalka u dhigeen taasa horta khaladka ay gelisay waxa khaladka ay geliyay dhacdooyin hore aan ogaa iyo wax hore dhacay na khaladka waa ay gelisay waxaan se ku arintaas koobaad ku soo xiraya gabdhaha odayaasha kuwii maqlay iyo kuwaan maqlin kuwii meesha laftooda igala soo xiriiray intaba inay raali iga ahaadaan qodobka labaad waxa weeye universal markii aan gartay in qalad iga dhacay markaan gartay in ay waajib tahay inaan meeshii laftirkeedii iyo universal qaladkii iga dhacay aan dadka ka raali geliyo waxaan weydiistay universal inaan idaacadii dib uga hadlo qarashkana anigu la baxo si aan dadkii uga raali geliyo universal waxa weeye meel ku tala gashay dadka saddex afar inay isaga hor keento inay buktooyinkii jiray iyo dhibaatadii jirtay dib u soo noolayso si dadku ay dhibaato la kulmaan dadku ay cuqdad ay kala qabaan dib loo soo celiyo waa diideen inay iga qabtaan raali gelintaas ayagoo qarashkooda qaadanaya waxaan ummadda Soomaaliyeed uga digayaa universal halaaga Soomaaliya ka jira ayay kamid tahay iska ilaaliya proofkeedina waxa ah waad ogeydeen ninkii Prime Minister ko Ingiriisku hadda laga raayay markuu gafka galay oo na islaan uu idaacadda gafkaga galay uu gurigeeda ugu tagayay isla markiiba isla idaacadii ayuu ku noqday oo raali gelin ka bixiyay waajibku wuxuu ahaa idaacadii gafka aan ku galay inaan raali gelinta ka bixiyo balse waxa dhacday nimankii niman dantoodii helay oo wanjaraad iyo mataqaana xumaan inay ummadda ka dhaxgalaan doonayay ahaayeen marka halkaas waxaan uga baxayaa universal iyo sida dadka Soomaaliyeed ay u khiyaanayso iyo say isaga horkeenayso qodobka saddexaad maanka ana buu yiri Cabdulqaadir Xaaji oo aan ku ogeyn inuu joogo London oo 22 sano ama 20 sano ahaa ninkii Maxamed Siyaad ag fadhiyay ee talooyinka xunsiinayay ee xisbigii hanti wadaaga kacaanka Soomaaliyeed la oran jiray ee hanti wadaaga ahaa ee shuuciga ahaa gudoomiyaha u ahaa nimankii dalka qabsaday ee 22kii dalka golaha sare la oran jiray ninkii kamidka ahaa ninka Soomaali u tirinayso Cabdulqaadir ama uu og yahay bay la tahay ama ha jooga ama yuusa joogina wuu iska warqabaa annaguna waanu ognahay caynaasha loo tirinayaa waxa loo tirinayaa wadaadadii lagu dilay Siigaale waxa loo tirinayaa ninkii la oran jiray Gabayre waxa loo tirinayaa ninkii la oran jiray Dheel
su-aalaadkaas in wax laga weydiiyo dadkaas ninka ilaa mas-uulka ka ahaa oo xisbigaasna madaxda ka ahaa maxamed siyaadna gacantiisa midigta ha ahaa ma ahan dad kale oo masaakiina iyo waxaas in la qabqabsado balse aniga cabdulqaadir oo anigu cabdi xoosh baan ahay anigii adigu way sogna 21kii wixii aad qabanaysana waan ogaa adiguna waxaan qabanayo waan ogaa anigu ganacsadaan ahaa adiguna xisbigii shuuciga ahaa ayaad madax ka ahayd ummadda Soomaaliyeed oo maanta burburkaas ninkii xisbigii shuuciga ahaa anti wadaagaha madaxda ka ahayd baad ahayd burburka wixii aad ku leedahay dadkii la dilay wixii aad ku leedahay siyaasadii la khalday ee maxamed siyaad dadkii khalday ee dhibaateeyay ee khaladka geliyay wixii aad ku leedahay hargeysa iyo burburkeedii iyo waxa laga sheeganaya ama reer hargeysa sheegtaan ama reer waqooyi sheegtaan wixii aad ku leedahay ninkii inta noo yeeray yiri baad ahayd sida hargeysa loo burburiyay kaalay dadkiina ganacsataa aan soo tusay ninkii ka diiday baan ahaa oo ku yiri magaalo madaxdii labaad aniga igeyn maysa kaalay si aan u jajabiyay aan ku soo tusay cidii kale aad geynaysa gee ninkaad ku dacweynaysay baan ahaa cabdulqaadirow maanta waan ogaaday London aad joogto aniga ayaa lawyer ku qabanaya aniga kharashkiisa bixinaya aniga ayaa cadeynaya waayo de mareexan qolo dawladda taladaada iyo waxaad wadato raalika ana wuu lahaa qolo diidanna wuu lahaa laakiin ilaahay weynaaba ogaa waxaan ka diidanaa iyo waxaan ka ogolaa balse aniga iyo adiga weynoo bilaabatay aniga qabiil ma dirsan markaan meesha ka hadlayay qabiil ma taqaana uma shaqeynaynin waxa ku soo galiyay waxa weeye wixii dambi ahayd aad ku jirto Soomaaliya ka soo gashay ayaa channel halka ka raadsanaysay muraad baad ka raadsanaysay aniga Soomaaliya isku laakiin kuwa kanu xidid baan nahay xigaalaan nahay Soomaali baan wada nahay saaxiib baan wada nahay iga raali ahaada aniga leh adiga shaqo ku taala adiga ma aha wixii khalad oo aniga iga dhacay universal shaqo u taalana ma aha aniga leh gabdhaha hooyooyinka walaalaha anaga xidida anaga walaalaha anaga saaxiiba aniga intaan ku leeyahay adigu kuma lihid Soomaalinimada igu jirtaana adiga kuguma jirto haday kugu jirto bal gabayra ka waran bal ninkii la oran jiray ka waran ninkii la dhihi jiray ninkii waadada ahayd masaajidka joogay oo tiri xisbiga hanti wadaaga kacanka Soomaaliyeed shuucinimadu bay ka hor yimaadeen nimanka ku dishay ka waran waxa weeye waanu sognahay Soomaaliina inay meel kale taadaba ma ahayn adiga in lagu su'aalo weeye wixii Soomaaliya ka dhacay annagana marxaati baanu kana waa inoo bilaabatay waxayna ila tahay Soomaaliya inay ku farxi doonto marka intaan lawyer ku qabto wixii aad gashay Soomaalidii ogeydna way moogtaa waa lagu moogaa laakiin ana caawa baraarujinayo Soomaali cidii khaladka gashay oo Soomaali sidaan u gashayna waxaan jecelahay inay sidaas banaanka ugu soo bixi doonto ahlan wa sahlan Soomaalidana raali ayga ahaato